بسم الله الرحمن الرحيم هبay wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkan waxaan ku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channel-keenan fadlan subscribe noo saar waa ku mahadsan tahay saaxiib la janqadkaaga kabtaankii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid Marcelo ayaa la sheegay inuu gabi ahaanba ka fariisan doono kubadda cagta milkadii markii uu ka tagay kooxda Real Madrid Marcelo ayaa la filayay inuu tago koox kale iyadoo ay dalabyo ka helaya naadiyaal ka dhisan qaaradda Yurub oo dhan Marcelo ognahay inuu yahay laacib khabiir ah wax badan soo joogay naadiga Real Madrid ku soo dhex jiray kubadda cagta in badan Real Madrid waa inaga kaliya u qaaday koobka ugu badan 25 koob ayuu qaaday Real Madrid waxa uu soo dheeliyay 15 sano Marcelo oo lagu xasuusto waa uu cadaray uu ka soo sameeyay naadiga Real Madrid oo ah saaxiib ka dhow ee laacibka Cristiano Ronaldo ayaa gabi ahaanba waxa la sheegay inuu faariqin doono garoomada uu kabiisa tiirin doono waxa ay mar hore sheegtay marka wargeys ka soo baxa marka dalka Spain ayaa sheegtay inaysan Marcelo uusan gabi ahaanba aadayn dalka Qatar iyo dalka Mareykanka horyaaladooda waxaana uu rabay naadi ka dhisan qaaradda Yurub dad badan ayaa sheegaya in لاعبكي هراء نادي ريال مدريد ودلبي كيلو نادي AC Milan iyo Lyon laakiin lama yaqaan waxa uu kalifaya لاعبكي weyn ay khabiirka lagu magacaabi jiray Marcelo bidixdii Real Madrid ee waqti adag la soo shaqeeyay ku soo guuleysay koob badan ku soo guuleystay naadiga Real Madrid wax badan juudi iyo muruq badan soo gashay naadiga Real Madrid ayaa iskaga horeelay naadiga bishii hore wax saxiixa naadiga lama sameyn hadirtan waxa leeyahay ay soo warinayaan wargeyska marka in gabi ahaanba uu iska fariisan doono ciyaaraha dunida uu kabiisa tiiran doono lama yaqaan waxa uu kalifayo laacibkii weyn ee Real Madrid Marcelo oo la yaqaanay waxa asagayo laacibka weyn ee Cristiano Ronaldo ay ka soo sameeyeen naadiga Real Madrid caawintii iyo goolashii badnaa ay isla soo qaateen waqti badan ayuu ku soo qaatay Real Madrid waxa uu ku soo guuleysay champion la liga koob walba ayuu ku soo qaaday laacibka lagu magacaabo Marcelo waxaan kaloo wararku eegi doonaa laacibka Mohamed Salah ee ka soo jeeda wadanka Masar ayaa kaniisad waxa ugu deeqay lacag milyamaan ah kadib markii magaalada Qaahira ay ku gubatay kaniisad ay leeyihiin Masaarida لاعبكان oo laacib muslim ah ayaa fajacay ama waxa ka qaaday muslimiintii taageerada u ahaa hadii dad badan waxa ay sheegayaan inuu half million taageerayaal uu lumiyay Mohamed Salah maadaama diinteena suuban ee islaamka uu wax qalad ku ah ka shaqeeyay lacagna ku bixiyay waxa jira muslimiin badan oo dayacan waxa jira abaaro far badan waxa jira walaalayaal dibaato ka socota Syria oo ay Israel duqeynayso waxa soo dhan Mohamed Salah oo aan muslim ah ka soo jeeda dalka Masar waa uu iska intiray waxaana uu u jeestay inuu kaniisad Ilaahay fawaaxishkiisa iyo qurankiisa lagu cibaadaysanayo inuu lacag ku bixiyo sidii dib habeen lagu sameeyo Mohamed Salah hadda ma oran karaa islaamnimadiisa farba ku guda ma la dhihi karaa maadaama ay jiraan inuu wax badan ka qabto masaajidada ay ahayd inuu guriyo macallimada quraanka lagu dhiso in dadka muslimiinta haduu wax gacan qabanayo uu gacan qabto taas oo kaliftay in malaayiin muslimiina ay taageerada kala laabtaan Mohamed Salahna oo inta soo bilyan oo muslimiin ay u baahan yihiin oo lacaga ku bixiyay kaniisad ku gubatay magaalada Qaahira ee dalka Masar saaxiibayaal kala warkor waxaan ka haynaa laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu rabaa in toddobaadada soo socda uu ka warbixiyo mustaqbalkiisa ma sii joogi doona naadiga Manchester United ee ku dhashay garoonka Old Trafford ma bixi doona manaadib uu helay warbixin kooban ayaa iminka haya saaxiibayaal waxaana la sheegayaa in 8 naadi ay soo diiday laacibka weyn ee Cristiano Ronaldo oo wax badan lagu soo aamin jiray laacibkii loo khasranaa laacibkii championka Master Champion aha hadeertan waxa uu leeyahay naadi uu ku biiro waxa soo diiday 8 naadi oo ka dhisan qaaradda Yurub waxa kamid ah Chelsea waxa kamid ah Atletico waxa kamid ah Real Madrid waxa kamid ah Barcelona waxa kamid ah Paris waxa kamid ah AC Milan Inter Milan waxa kamid ah naadiga Bayern Munich Paris Saint-Germain
intaas oo naadi waa ay soo diiday laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo lama joojiye laacibkii loo bixiyay oo ahaa goolka iyo asagoo ay isla shaqeyn jireen hadeertaan waxa uu ku soo dhacaya cidlo waxaana uuna isbuucyada soo socda ka hadli doonaa mustaqbalkiisa ma ka tagi doonaan adiga Real Madrid ee ku dhashay Old Trafford ma sii joogi doonaa warkaas oo dhan waxa uu sheegi doonaa toddobaadka dambe halkan ayaana ka bogan doontaan warka ka soo baxa laacibka weyn ee Cristiano Ronaldo waxa kaloo la sheegayaa naadiga Barcelona ee ku dhashay garoonka Camp Nou ayaa waxa la sheegayaa inay xaraashi doonto tira ciyaaryahan ah oo kamid yahay Aubameyang oo bishii January ku biiray naadiga Barcelona asagoo free uga yimid naadiga Arsenal waxa kamid ah Sami Amititi waxa kamid ah De Jong ay doonayso naadiga Manchester United ayaa kamid ah laacibada ay xaraashiso naadiga Barcelona maadaama aysan Barcelona ahayn wax dakhliya xeerka liigahana uu qabanayo mar hore sanadkii hore waxa la uga tagay Lionel Messi in dhaqaalaha naadiga Barcelona uu hoos ku dhimay tan oo ah in naadiga Barcelona dhaqaalaheedu uu hoos u dhacay hoos dhac weyn ku yimid maadaama xeerka liigaha uu qabanayo intaasoo mushaar ama bixin karo marka waxay rabtaa inay intaan ciyaaryahanada iska bixiso lacagta ka hesho waxaasna ay arustay rabtaa waxaan kaloo saaxiib wararka aan ku haynaa aan suuqa aan ku eedi doonaa Alvaro Morata oo la sheegay inuu imaan doono naadiga Manchester United maadaama uu ka helay dalab xoogan haddii uu ka baxo laacibka weyn ee Cristiano Ronaldo waxaan kaloo saaxiib idinka haynaa warbixin kooban laacibka lagu magacaabo Sergio Ramos ayaa waxa uu nabadaan u noqday labada laacib ee Kylian Mbappe iyo Neymar Jr kadib markii ay isku dhac ama khilaaf soo kala dhexgalay labadan laacib ee ka dhashay afka hore ee kooxda Paris Saint-Germain xunguruftan bilowga ah ee ka dhex taagan labada laacib ee Kylian Mbappe iyo Neymar Jr ayaa la sheegay inuu salka ku hayo xagga Bruniga iyo raacishada xagga ah ayuu waxa la sheegay in ay khilaafkoodu salka uu ku hayo laakiin laacibkii hore ee Real Madrid kabtankii hore ee dhiiga lahaa ee Real Madrid Sergio Ramos ayaa kala dhexgalay labadan laacib una sheegay in khilaafku uu soo wacnay naadiga iyo dhammaan qolka labiska oo dhan intaas ayaa saaxiib wararkii ciyaaraha intii wacd cadeed ee wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha aan ku soo afeernaa saaxiibayaal haddii aad weli nala soo joogtid waxaan kaa codsanayaa saaxiib inaad subscribe noo saarin waa ku mahadsantahay saaxiib la janqaadkaaga